بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مeel kastoo aad joogtaan ba allaha woodala dhammaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurka sanfareenka ee coronaviruska fayrasyadiisa kala duwan ilaahayna uu naga xafido meel kastoo dunida aan ka joognaba alla barigana aan joogto ka dhigna biidnillaahi kariim waa maalinimo talaadaha 19 Janawari 2021 coronaviruska qaybihiisa kala duwan ee dunida aad bay ugu siyaadayaan marka la fiiriyo qaaradaha iyadoo dhinaca kalena talaaladii si aad loo wada wadamada qaarna ay xowli dadka ku talaalayaan laakiin isbedel aanu jirin marka la fiiriyo qaybta cusub ee viruska oo faafideedu aad ay uga dheerayso qaybtii asal ahaan ka bilaabatay magaalada Wuhan ee dalka China UK ayaan ku bilaabaynaa oo kamid ah meelaha fayraska cusub uu ka bilowday bishii September 2000 iyo waliba 20 si aad iyo aad ayuu ugu fidayaa guud ahaan qaybaha UK iyadoo UK-na dhinaca kale ay wada dadaalo xoog leh oo ah talaalada ay sida aadka u badisay marka la fiiriyo taasoo wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in talaalada iminka la talaalay dadka gaaraya halka doosi hore qaatay ay kor u dhaafeen ilaa iyo 4 milyan oo qof ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in dadaalo xoog la wado wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba dadka ku shaqada leh arrimaha caafimaadku ay aad u dadaalayaan habeen iyo maalin amaba 24 saacba taas oo la doonayo in la badiyo qorshayaasha lagu kala saarayo qaybuhu siday u kala muhiimsan yihiin talaalada waxa lagu bilaabay dadka 80aadka iyo ka badana iyo waliba dadka xaaladahooda aanay qumaneen xagga caafimaad ahaan taas oo keentay in la sheegay ilaa iyo 4 milyan oo ruux dooskii koowaad inay qaateen walow ay jiraan kale aad u fara badan oo dooska labaad la siiyay warbixinta wasaaradda caafimaadka iyo ra'iisul wasaaraha waxa ay labaduba sheegayaan in dadkaas 4 milyan ah dadka 80aadka ka weyn kala bar iyo dadka degan guryaha dadka waaweyn lagu hayo kala bar ay yihiin dadka la talaalay waxa jira dad aan da'daas ahayn oo iyagu talaalka qaatay laakiin loo arkayo inay ahayd laga maarmaan in la talaalo xaaladahooda caafimaad oo aan wanaagsanayn iyo arrimo kale oo murugsan oo markaasi haysta dadkaasi marka daba la fiiriyo UK dadaalada ay wadeen ayaa waxa muuqanaya maalmihii ugu dambeeyay in la arkayay meelaha qaar in tirada soo ridashadu ay maalmihii ugu dambeeyay ka yarayd ilaa iyo 50 walow toddobaadyo ka hor 50 ay kor u dhaaftay xagga dhimashada UK ayaa isbedelaysay waqtiyadii ugu dambeeyay taasoo la arkayay toddobaadkii hore marka la fiiriyo maalmihii ugu horeeyay in tiradu ay hoos u dhacaysay laakiin mar qura ay kor u kacday haddaba afartii maalmood ee ugu dambeysay jimcihii sabtidii axadii iyo isniintii sidee bay ahayd tirada dhimashada ee UK maalintii jimcihii 1280 ruux ayaa la sheegay inay dhimatay maalintii sabtidii UK waxaa la sheegay inay u dhinteen cudurka coronaviruska 1295 maalintii axadii waxaa la sheegay tiradu inay hoos u dhacday qiyaastii kala bar oo 671 ay ahayd tirada dhimatay isniintii shalay warbixintii u dambeysay ee UK cudurka coronaviruska u dhimatay 559 ruux marka daba la fiiriyo maalmahaas isxigay tiradu hoos ayay u soo dhacaysay labadii maalmood ee ugu dambeysay walow ay sheegeen UK mararka qaar tirooyinka la soo gudbiyay inay ku jiraan tiro aan ahayn 24 saac ee ugu dambeeyay oo ah tiro ka hartay maalmihii hore oo soo dahday oo markaas aan la tirinin UK maalintii cudurku u bilowday coronavirusku ilaa maalinka maanta waxaa ka dhintay dad gaaraya 89860 ruux wasaaradda caafimaadka ee UK ninka xogeyaha ka ah oo lagu magacaabo Matt Hancock waxa uu sheegay in dadka reer UK looga fadhiyo inay dadaalo xoog leh ay sameeyaan taasoo ay sheegeen haddii ay yaraato tirada cudurka uu soo ridanaya inay yaraanayso tirada markaa cudurka u dhimanaysa ra'iisul wasaare Boris Johnson waxa uu sheegay in la furay goobo kala duwan oo dadka si buuxda loogu talaalayo marka la fiiriyo England ilaa iyo 10 goobood oo cusub taasoo ujeedku u yahay arrinka in la dardargeliyo ninka isagu NHS-ta u qaabilsan England oo lagu magacaabo Sir Simon Stevens ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay jirto daqiiqadiiba 140 cirbadood in dadka lagu talaalo taasoo ula jeedo inay kor u kacday talaalida dadku UK marka la fiiriyo qorshaha waxa ugu jira bisha February sanadkan marka la gaaro waa bisha January bisha xigtee in ilaa iyo 15 milyan ay talaalaan oo kamid ah dadka reer UK su'aal ayaa imanaysa in meelaha qaar la sheegay dadka waayeelka inaan la talaalin taasoo ay dhici karto in dad kamid ah dawladda iminka UK ay arrintaas ku doodeen ay kamid tahay xogeyaha ee dhinaca shaqooyinka iyo waliba howlgabka oo lagu magacaabo Theresa Coffey waxay tiri halka la iga soo doorto marka la fiiriyo dad waayeela ayaa jiro 80aadka oo la talaalin iyo dad dhalinyaro la talaalay ra'iisul wasaare Boris Johnson arrinka wuxuu uga jawaabay fursadda koobaad waxa ay tahay in la siiyo dadka 80aadka iyo ka weyn laakiin haddana dadka da'yar haddii la talaalay taa macnaheedu waxa uu yahay buu yiri in dadkaasi ay baahi gaar ah u qabaan xaaladooda caafimaad oo aan qumanayn iyagoo markaas talaalka aan sugi karin
xogayaha arrimaha dibadda ee UK ayaa isaguna ka hadlay arrinta ku saabsan cudurka coronaviruska iyo dadaalada dowladdu ay wado. Dominic Raabna waxa uu sheegay in dowladdu intii karaankeeda dadaallo xoog leh ay wado waa UK, taasoo ah in la rabo dadku inay maqlaan awaamirta oo ah in la kala fogaado aan la isku dhowaanin, waana sida keliya culayska looga qaadi karo sida maamulayaasha caafimaadka UK ay sheegeen NHS-ta in dadku ay kala fogaadaan si markaas ay u yaraato tirada markaas isbitaalada imanaysa amaba laga raadinayo meelaha ay ku jiran yihiin. warbixintii u dambeysay UK waxay sheegtay dadka isbitaalada u jiifa cudurka coronaviruska iminka inay kor u dhaafeen 37,000 oo ruux. midowda Yurub ayaa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan inay culays kala kulmeen sharikadda lagu magacaabo Pfizer oo ah sharikadda soo saaraysay tallaalka oo heshiiska la galeen, taasoo ay sheegeen wadamada qaar inaanay helin in loo keeno doosaskii laga ballan qaaday iyo xilligii loogu talagalay. tirada oo yaraatay xagga keenista wadamada qaar ayaa culays weyn ku noqotay wadamada reer Yurub qaar ka mid ah. wadamadaas waxaa ka mid ah wadanka Sweden, wadanka Denmark, wadanka Finland, wadanka Estonia, wadanka Latvia, wadanka Lithuania oo la sheegay dhammaantood inay sheeganayaan culayska ah in tiradii loo keeni lahaa ee xagga Pfizer ay yaraatay dhinaca talaalka, taasoo baahi badan ay jirtay. laakiin haweeneyda madaxda ka ah midowda Yurub oo lagu magacaabo Ursula von der Leyen ayaa waxay shaaca ka qaaday in arrintaas ay ka xaqiijisay ninka ugu sarreeya Pfizer oo yiri waxaanu ku dadaalaynaa dib u qaabeyn iyo nidaam xagga keenista iyo daabulaadda, taasoo uu sheegay 3 bilood ee ugu horeysa 2021 reer Yurub inay heli doonaan dhammaanba waxyaabihii laga ballan qaaday. marka daba la fiiriyo reer Yurub waxay dalbadeen sharikado kala duwan oo ilaa 7 ay ka dalbadeen doosas aad u fara badan oo ka badan 1 bilyan iyo 845 milyan oo doos oo ugu talagaleen guud ahaanba dadka Yurub degan in lagu talaalo waqtigii ku habboonaa. marka daba la fiiriyo guud ahaanba reer Yurub dadaallo xoog leh ayay wadaan oo talaalka ay bilaabeen, walow wadamada qaar lagu eedeyn karo marka dadkooda laga hadlayo shacabkooda in talaalka sidii la rabay aanu u soconin, wadamada qaarna si xooliya uu talaalku u socdo marka la fiiriyo guud ahaanba reer Yurub. dalka Brazil oo ka mid ah wadamada Latin America oo dhibaato xoog leh cudurka coronaviruska ay ka haysato marka la fiiriyo xagga dadka uu ku dhacay ay yihiin kaalinta 3aad, xagga dhimashadana ay yihiin kaalinta 2aad, ayaa aqritaankii waxay ku guuleysteen inay bilaabaan inay dadkooda talaalaan. Brazil ayaa waxa ay tijaabooyin ka qaaday 2 shirkadood oo la ogolaaday oo ah sharikadda lagu magacaabo AstraZeneca iyo Oxford talaalka ay soo saareen iyo sharikadda kale ee Chinese-ka ee lagu magacaabo Sinovac. arrintaas ayaa waxaa ka dhawaajiyay ninka isagoo wasiirka caafimaadka dalka Brazil oo lagu magacaabo Eduardo Pazuello oo shaaca ka qaaday in la hubiyay talaalka qolyaha Sinovac ee China 50.4 inuu wax tarayo, AstraZeneca ay hubiyeen talaalkana ay bilaabeen. maalinimadii axadii ayay bilaabeen, waxaana lagu bilaabay haweeney kalkaaliso caafimaada oo iyadu ku dhaqan magaalada lagu magacaabo São Paulo oo ah magaalo ay dadku si aad ugu badan yihiin, oo haweeneydaas kalkaaliyaha caafimaad ee reer Brazil lagu magacaabo Monica Calasanes waxaana ay tahay 54 jir, waxayna qaadatay talaalkii ugu horreeyay ee reer Brazil. qorshuhu waxa uu yahay oo dowladda Brazil ay qorsheynaysaa inay talaalka gaarsiiso dhammaanba 27 gobol, iyadoo ay ku dhaqan yihiin dadka reer Brazil oo tiradooda ay badan tahay oo ah 211 milyan oo ruux. Brazil dhibaato xoog leh ayay ka mudatay marka la fiiriyo cudurka coronaviruska, taasoo loo aaneynayo dowladda Jair Bolsonaro inay dayacday dalka waana xanibaad buuxda marna la gelin, oo weliba uu kula dagaalay wasiiradiisii caafimaadka oo 2 oo shaqada ka tegay iyo guddoomiyaasha gobolada in xanibaad la soo rogo, isaguna uu yiri waxyaan la xanibin, dadka dibadda loo soo saaro sankiya afkan ayaana xirinin, taasoo culays keenta aqritaankiina isagoo cudurka uu ku dhacay. reer Brazil culays xoog leh ayaa ka qabsaday marka la fiiriyo dhinaca coronaviruska kii hore iyo weliba ka dambo iminka ka bilowday isagoo ku faafaya gobollo badan oo ka tirsan dalka Brazil. waddanka Brazil marka la fiiriyo cudurku guud ahaanba waxa uu ku dhacay dad gaaraya 8 milyan iyo 500,000 oo ruux, waxaana cudurku uu ka galaabtay reer Brazil dad aan ka yarayn 210,000 oo ruux. dalka Hindiya oo kamid ah wadamada cudurku uu saameynta ku yeeshay ahna dalka 2aad ee ugu soo ridashada badan isla markaasina ah dalka 4aad ee xagga dhimashada ayaa waxa ay bilaabeen talaalkii ugu ballaaraa ebed ee adduunka laga qabtay cudurka coronaviruska looga hortagayo. Hindiya oo ah wadanka 2aad ee haysta tirada ugu badan dadyowga adduunka ayaa ra'iisul wasaare Narendra Modi waxa uu ka dhawaajiyay in la doonayo in la talaalo dadka gaaraya 1 bilyan iyo 300 milyan ee ruux reer Hindiya.
waxa ay sheegeen reer indiya inay dadaal xoog leh ugu jiraan in dhammaanba gobollada indiya la gaarsiiyo tallaalka iyagoo markaa oggolaaday 2 shirkadood oo dhinaca gudahooda ah iyo weliba sharikadda kale ee lagu magacaabo AstraZeneca iyo weliba jaamacadda Oxford tallaalkooda taasoo la sheegay indiya inay damacsan tahay tiro aad u fara badan oo malaayiin oo dadkeeda inay tallaalaan sanadkan aynu ku jirno ee 2021 marka haddaba la fiiriyo guud ahaanba adduunyadu xaalku ma qumana meelo badan qayladhaan ayaa ka soo yaraysa dhinaca kalena waxaa jira digniino la siinayo waddamada qaar oo loo sheegayo inay taxadaraan qaaradda afrika oo ka mid a meelaha uu saamaynta ku yeeshay cudurka coronavirusku laakiin ay aad uga roon tahay guud ahaanba qaaradaha kale ee dunida ayaa dalka nigeria iskuuladii lagu laabtay isniintii laakiin baarlamanka dalkaas ayaa dowladda waxa uu ka codsanaya federaalka nigeria in iskuullada ku laabashadooda dib loo dhigo ilaa iyo 3 bilood laakiin arrintaasi ma aanay dhicin waxaa la arkayay ardadii oo isniintii tagaysay marka la fiiriyo iskuullada iyagoo sankiya afka loo xiray islamarkaasina albaabka laga galo iskuullada guud ahaan iyo jaamacadaha la dhigay qalabka caafimaadka oo markaa gacmaha ay ku tirtiranayaan laakiinse nigeria waxa wararku ay sheegayaan inay ka mid tahay waddamada qaybtan labaad ay soo gashay cudurkan sida aadka u faafaya guud ahaan nigeria marka la fiiriyo cudurku waxa uu saameyn ku yeesho uu ku dhacay 110,000 iyo weliba 387 ruux laakiin nigeria dadka ka dhintay ma badna marka loo fiiriyo dadyowga kale ee afrika iyo weliba dunida oo waa 1,435 ruux dalka South Africa ayaa ah waddanka ugu badsaday xagga soo ridashada iyo xagga dhimashada iyadoo weliba qaybta labaad ee viruska cusub ee ka bilaabatay South Africa taasoo keentay meelo kale inay ku faafaan sida UK iyo Europe iyo meelo badan oo adduunyada ka mid ah laakiin Afrika dadaal xoog leh ayay wadaa iyadoo toddobaadkii hore madaxweyne Ramaphosa iminka gudoomiyaha midowga Afrika uu shaaca ka qaaday in ilaa iyo 270 milyan oo doos la xasiliyay horena markaas loo dalbaday ilaa iyo 600 milyan oo doos laakiin loo arko intaba inay ku yaraan karaan guud ahaanba qaaradda Afrika oo dadkeeda tallaalka u baahani ay si aad u fara badan yihiin marka la fiiriyo waddamada qaybtan labaad ay si aad ugu faaftay waxaa ka mid ah waddanka South Africa waddanka Zimbabwe waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo dalka Suudaan guud ahaan caalamka marka la fiiriyo dadaallo xoog leh ayaa jiro tallaalkii waa uu bilowday iyadoo dhinaca kalena culaysyo xoog leh ay ka jiraan meelaha qaar sida waddanka Mareykanka oo xaaladiisu aanay qumareen xagga cudurka coronaviruska oo dadka cudurka uu soo ritay ay ka badan yihiin 25 milyan oo ruux iyadoo dadka ku dhintay cudurka coronaviruska Mareykanka maalintuu bilowday ilaa maalinka maantaana ay madaxa la sii gelayaan 400,000 oo ruux waxaa daba la eegi doonaa tallaaladii oo bilowday iyo dardargelintooda oo meelo badan la geenayo iyo xaalku sida uu noqdo iyo qaybtan cusub ee fayraska sida aadka u faafaysa sida markaas loo xakameeyo qaybtan fariintan waxaad dhagaysataan oo aad aragtaan toddobaadkii 2 maalmood oo ah maalin walba oo talaada oo maanta oo kala ah iyo maalin walba oo jimco ah haddii Allah awoodda lehi uu ogolaado marka haddaba aynu fiirino fariinta waxaa fududeeya sharikadda dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliyana guud ahaanba la geenayo lagana keenayo waa sharikadda lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmed Barqadle iyo weliba iyadoo halkaas laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka hadda diraysidii haddii lagu keenayo intaba ganacsade Axmed Barqadle waxa kale oo bulshada u haya guud ahaanba telefoonada noocyada kala duwan ee kuwii ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949528777 dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan badhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada eebada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhowaan yaana kuu soo dhowaan yaana isu soo dhowaan aan kala fogaano baryada eebba aan badino nadaafadana aan ku dadaalno maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronaviruska oo idin leh annagoo kariimkeenna kaashanayna kaalinteenna aan ka qaadano ka hortagga coronavirus maasha allah